Assalaamu calaykum akhyaarta. Maanta waxaan ka hadlaynaa sidee ayaad isaga dayn kartaa qishka. Run ahaantii qishku wax wanaagsan maaha, waana khiyaano. Laba jeer ayay khiyaanan tahay. Marna waa khiyaano oo ma bannaana oo xag Ilaahay xaaraan iyo diinteena way xaaraantinimaysay. Marka labaadna adiga ayaa naftaada khiyaamay. Marka waxaan ku siinayaa dhowr talo ama 3 talo ayaan ku siinayaa oo aad isaga dayn karto qishka ama khiyaanada. Lambarka koowaad, ka fikir ama isweydii waxa ka dambeeya qishka. Halashaan isweydii mustaqbalkaaga dambe ma noqonaysaa arday guulaystay oo mataqaana meeshii uu doonayay inuu gaaro. Run ahaantii ardada raba inay guulaystaan ama dadka guulaystaa badanaa maaha kuwa wax soo qishay ama qish soo sameeyay. Marka haddii aad qish samayso waxay caddaynaysaa inaad tahay qof guuldaraystay oo faylar. Run ahaantii mana aha wax wanaagsan. Sidaa darteed qishku waa ma wanaagsana waana xaaraan. Lambarka labaad, isweydii waxa aad ka kasban karto. Halashaan waxaan ka wadaa haddii aad qish samayso oo adigoo imtixaan ku jira, maxaa aad ka kasban kartaa? Waxaad ka kasban kartaa inaad lose 0 mark inaad heshid ama mataqaanaa inaad wax dhibca aad helin oo imtixaankaaga dhan laga kansalo. Sidaa darteed qishka ka isweydii ama ka fikir waxa aad ka kasban karto. Run ahaantii badanaa ardayda qishka sameeya imtixaanadooda waa la kansalaa oo 0 mark ayaa loo soo qoraa. Sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaad wax fiican kansan lahayd ama qaway aad heli lahayd. Intii aad heli lahayd xitaa waad isku qoonsanaysaa oo waxaa la leeyahay intaan kala xitaa qish buu ku keenay adigoo mataqaanaa qaway inta aqoontaada ku keensaday. Marka mar walba naftaada qiimee, naftaada ixtiraam, waxa adiga mataqaanaa ku dhow samee. Lambarka 3aad, ka fikir mustaqbalka inaad noqonayso arday guulaysta. Run ahaantii dadka sameeya qishka ma aha kuwa guulaysta. Badanaana dadka qishka sameeya ma aha kuwa ujeedo fog ka leh imtixaanka ama mataqaanaa waxbarashada ujeedo fog kama laha. Sidaa darteed waxay sameynayaan qish, waxay rabaan inay ku meel gaaraan oo ay mataqaanaa wax aysan lahayn keensadaan. Haddii aad rabto inaad noqotid arday guulaysta, fadlan qishka iska ilaali. Weligaana ha samayn. Anigu weligay mataqaanaa qish intaan sameeyay imtixaan mataqaanaa iska tastiyo waxba aan ahayn inaan qof weydiiyo maahan, laakiin imtixaan weyn weligay qish ma samayn. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iiday. Fadlan subscribe noo saar. Mahadsanid.